Waan idin salaamay asxaabay ku soo dhawaada sheekooyinka buugaagta ee Sam Kids TV. Maanta sheekadeenan waxay ku saabsan tahay Tukihii oo maraa. Wow! Waxaan la jeclaa waxbaga ahaa ama sida uu xiisinaya meesha untoo waaba ka helaybo. Blue, adiga anaga nagu soo biir waxaana ka shaqeynaynaa kaalay nala qabo. Ahaha, soo ma abtin haya waa yeeday. Maya laga yaaba inaa yeelo. Aruuri aniga waxaan idin leeyahay meesha jooga imaada ee iska raaxaysta hoosha ee ku jirtiin iska joojiya. Ma igu caawin kartaa karaafadaas meesha sida inaa ii soo qaatid aniga biyo ayaa iga imaa biyo ayaa ku farsan lahaaye. Blue, adiga ma waxaa rabtaa inaad soo istaago karaafada kuu soo qabto laakiin igana noqo aniga shaqaa haysanaa shaqadii ma kasoo tegi kariyaa. haa waa iisita soo ma aha dhib maaha aniga waa iska seexanaya marka. Beri hore waxaa jiri jiray tuka aad u oomanaa. Mar walbana wuxuu raadinayay biyo uu cabo. Marka dambe ayuu wuxuu helay weel ay ku jiraan biyo aad u yar. Asigana aad ayuu midtaasi ugu farxay. Wuxuuna soo aaday dhanka iyo weelka si biyaha uu ku jiro uu ka cabo. Tukihii wuxuu uu bilaabay inuu isku dayo siduu biyaha u cabi lahaa. Laakiin si kastaba ha ahaato, biyaha ma uusan cabi karin. Waayo waxay ahaayeen biyo aad u yar. Weelka ay ku jiraan wuxuu ahaa weel weyn. Haya caluuray barfiiliya. Wow! Waa tuka ka waran. Wuxuu rabaa inuu isku dayo karaafadaas dheer biyaha ku jira inuu cabo. Maanta kuleel saa'id ayaa jiro. Waxaa dhici karta inuu oomay. Weel ayaa u keenana waan ugu shubeynaa. Maya, haddii kale wuu naga cararayaa. Marka sidee kaloo caawin karnaa? Ma ogi. Laakiin anaga waxaa noo furay inaa fiirsana bes. Tukaha marba markii ka sii dambeys wuxuu isku dayayay inuu weelka ka cabo biyaha balse ma uusan awoodin. Ilaa marka dambe tukaha inuu wuxuu ku fikiray inuu meesha iskaaga tago. Asiga laakiin intuu aaday. Wuu ka taalay karaafada inuu furo wuuna iskaaga tagay. Yaa fiiri wuu soo socdaa tukaha. Tukaha si uu u cabo biyaha weelka ku jiro wuxuu ku khasbanaaday inuu fikrad cusub keeno taasoo ah inuu soo aruuriyo dhagaxaan uuna ku rido weelka. Yaa waa yaab. Tukaha ma uusan ka taalin inuu soo aruuriyo dhagaxaan asigoo ku fikirayo haddii uu weelka uu ku shubo dhagaxaan biyaha kor imaanayo sidaasne weelka biyaha ku jiro uu ku cabayo. Aniga ma fahmooyo waxa uu rabo inuu sameeyo. Tan waa sheeko aad u xiiso badan.
waxa uu soo aruuriyay dhagxaan aad u fara badan ilaa iyo weelka biyaha ku jiro uu kor u imaado. asigana si fudud ayuu markaasi u caaway biyaha. oonka saa'idka hayna sidaas ayuu uga baxay. tukahane waxa uu noqday tuka aad u aqli badan. waxa hadda dhacay ilaa iyo hadda waan aamini la'ahay. tukaha waa tuka aad u aqli badan waxa uuna keenay fikrad wanaagsan waxaana tahay fikradani in loo taydo. waxaanoo kale inaan arki doono weligay kuma fikirin. haye caruure soo baxaan dhamaysan hoosheenna. hubta ayaa ka soo egtay waxaan u malaynayaa waxay sidoo hor imayhiin ee u xiisa badan yihiin. abo maxaa way gaafadeedii. caruurey soo bax banooni ayaa ciyaareynaa. hey sida maxaa adiga ii yeelaysiin gaafada maxaa sida loo yeelay. abo kuwaadaka xasisiyo maxaa sida ii qayaan. joo biyahayga xataa sii cad maxaa ii dhaafi weysay. maxaa wasaq uu buuxisay waa iga wasaqaysay gaafadeedii. dhagaxyo badan ayaa ku buuxisay adigu maxaa sameeyaa. sheekadii tukihii oomanaa intan ayuu ku egyahay. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani. inta muuqaalkan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.